ciidamada booliska ee ku sugan isgoyska Holwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa saaka dilay nin dhalinyaro ahaa oo watay mooto bajaaj kadib markii uu rasaas ku furay. askariga ayaa u diiday mooto bajaajta inay marto wadada waxa uu ku furay rasaas, taasi oo keentay inuu dhinto ninkii waday mootada, sidoo kalena dhaawac uu noqdo ruux kale oo la socday. ruuxa dhaawacmay waxaa la geeyay isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya halkaas oo lagu daaweynayo, sidoo kalena waxaa baxsaday askarigii dilka geystay. ciidamo badan oo boolis ah ayaa ku sugan isgoyska Holwadaag ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo handadaad iyo dhibaatooyin kala dul dhaca dhalinyarada mootooyinka bajaajka ah ku xamaasha. tacdiyada ciidamada ay geysanayaan ayaa noqday kuwo soo laalaabta marka loo eego sida bareerka ah ay u dilayaan dhalinyarada mootooyinka bajaajka ah kaxeeya ayaa hadda xiray gebi ahaanba isgoyska Holwadaag, halkaasi oo ay ku dhigayaan banaanbax cabasho ah. bishii la soo dhaafay dabayaaqadeedii ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada booliska uu dilay nin watay mooto bajaaj, taasi oo keentay in ay banaanbax dhigaan dhalinyarada mootooyinka ku shaqeysta. maxamed cabduqaadir jiro, Sharbaaka Mustaqbal Media, Muqdisho.